daawadayaal kulanti waxaan wanaagsan kuna soo dhawaada idilkiinba meel kasta idinaga daawanaysa dunida dacaladeeda. barnaamijkan aynu ku soo qaadan doono dafcaddii tobnaad ee ka qalin jabisa dugsiga tababarada iyo xirfadaha ee hay'adda caalamiga ee Candlelight. dafcaddan oo noqonaysa dafcaddii tobnaad ee ka qalin jabisa dugsigaasi oo kaalin wax ku ool ah iyo halboole u ah guud ahaanba bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag. kumanaan hore ayaa ka aflaxay dugsiga tababarada iyo xirfadaha hay'adda Candlelight. waxqabadka hay'adda Candlelight daawadayaal kuma koobna oo kaliya dhinaca waxbarashada, hase ahaatee waxqabad mug iyo miisaan leh isla markaasina aan la inkiri karin ay Candlelight ka qabatay dhinacyada caafimaadka, deegaanka iyo weliba horumarka iyo dib u dhiska. hay'adda Candlelight muddada ay ka howlgelisay gobolka Sanaag waxay dhexda u xidhatay sidii loola dagaalami lahaa aafooyinka qaran ee ay ka mid tahay gumaadka, xasuuqa, shidniinka iyo gubniinka dhirta ee xaalufinta deegaanka. sidoo kale waxa ay dhexda u xidhatay xakamaynta iyo ka hortagga tahriibta oo iyaduna aafo qarana. Candlelight waxay ka qayb qaadatay horumarka wadooyinka, dib u dhiska iyo weliba waxqabadyo aan la soo koobi karin. haddaba barnaamijkan aynu ku soo qaadan doono dafcaddii tobnaad ee ka qalin jabisa dugsiga tababarada iyo xirfadaha hay'adda Candlelight aan idin kala baxo. qaybahaas oo kala ah electricity-ga, business administration-ka, secretarial-ka, tailoring-ka, software, lixda program computer-ka, cookery-ga iyo IT and electronics-ka. iskuulku wuxuu furnaa ilaa 2007 laga soo bilaabo 2007 bishii 9aad waxaana ka qalin jabiyay arday tiradoodu ka badan tahay 2,000 arday. iminka waxa iskuulka dhiganaya marka laga reebo ardayda iminka qalin jabisay arday 200 iyo saayida. numberka dhabta waa 200 arday. insha Allah bilaha soo socda bishii January iskuulku wuxuu qaadan doonaa arday cusub. 200 arday waxay ka dhigtaan xirfadaha kala duwan sida biyo gelinta,
wastaadada nijaaradda leyrhka dawaarka isqurxinta combyuutarka business administrationka xoghaynta intaasoo qayboodoo kala duwan bay kala bartaan. waxaa maanta sharaf weyn noo ah mas-uuliyiinta magaalada Ceerigaabo, maayarka, madaxda laamaha dowladda, tacliinta iyo planninga iyo horumarinta, wasaaradaha kale, hay-adaha sida hay-adda CARE iyo hay-adda nagaad, guddida waalidiinta, madax dhaqameedka, inaad nagala soo qayb gashaan xafladan oo ay ka qalin jebinayaan 101 arday oo bartay xirfadaha uu halkan maamuluhu inooga sheegayay oo tiradooda ilaa 7 xirfadood ay tahay. runtii waxaana aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiintii iyo macallimiintii dadkan soo saaray ee iyagu u samray, ee u dhimray, ee u dadaalay, ee soo gaadhsiiyey intay bilaabaan kooraska inay dhammaystiraan. arrintaas arrin aan aad iyo aad macallimiinta ugu mahadinayna weeye, waalidiintana aan ugu mahadinayna weeye. waxaanu ku guulaysanay kan dhalayd haddaanu nahay ardaydii tahriibaysay ee saxarayaasha ku dhimanaysa ama carabta ama saxaraha galbeedka ku dhimanaysa Afrika oo 101 arday ah oo dafcaddii waliba ugu yaray dafcadaniya inaanu soo saarno sanad walba ilaa 3 dafcadood aanu soo saarno. waxaanaanu leenahay dadka tahriibaya haddii wax la baro ay xirfaday ku shaqaystaan ay helaan wadankooda ayay nabcadu taallaa ay joogi lahaayeen. magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag wuxuu ka mid yahay gobolada ay dhalinyaradu tahriibaan. waalidiinta waxaanu ku boorinaynaa inay ardayda u sheegaan wax marka ay dhammaystaan waxbarashadooda marba heerka ay marayaan waxa uga dambeyn doona mustaqbalka ardaygu haddii uu garanayo ma tahriibayo noloshiisana ma gelinayo markaas mahalaka ma gelinayo. taasina waa baaqaan waalidiinta u dirayna way. dhinaca kale hay-adda kan dhalayd xagga waxbarashada markay noqoto waxay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee ay ku taagan tahay horumarinta aanu ka wadno Somaliland. gobol ahaan Sanaag 43 goobood oo 10 iskuul oo binaaya ay ku jiraan ayaanu iminka ka wadnaa. barnaamijyada xagga waxbarashada oo ay nagala shaqeeyaan hay-adda Save Children iyo hay-adda CARE iyo hay-adda NRC iyo hay-adda ISF. runtii hay-adahaas u soo gurmaday gobolka ee xagga waxbarashada ka taageeraya ee xagga horumarinta ka taageeraya iyagana waxaan u diraynaa waxa maanta farxadan ayaanu iyagana waxaan u diraynaa hambaliyo iyo bogaadin baan u diraynaa. si officially waxa inoogu furaya maayarka magaalada ayaa inoogu furaya Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax baa inoo furi doona markaas baa barnaamijkeenu inoo bilaaban doona. intanina waxay hordhac iyo introduction inaan idinka sii siino barnaamijku qaabku u soconayo nidaamkiisa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هيدا كان الليت مدحض اللامة دولة دينا لتشوبة مدحض هيداها كوة عالمية هي كوة ضنقة لما أرضيدا معلمين تا بولا تيغان كيالك تشوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الليت إنه عصبة المدة بدن بيننا joogtay hawlo badan bay noo qabtay waa la tirin karo maaha hadii la miyi magaalo waxay ka qabatay wax aad u far badan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu hambalyeelaynaa haddaan nahay golaha deegaanka. waxaan leenahay halkaa ka sii wada waan idin rajaynaynaa guul annaguna intii awoodayada waxba idin kala harin mayno sidaan idinla shaqayn jiray ayaan idinla shaqaynaynaa. waxaan rajaynaynaa mar kasta inaad sii kordhisaan waxqabadka iyo horumarka. kan dhalayd aad iyo aad baan u ammaanayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaasaa ballanayno ahayd iminkana aa usii wadi doontaan insha allah. ardayda halkan fadhida ee faraha badan ee qalin jebisay waxaan rajaynayaa inaydin naftiinna iyo ummaddiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinaba wax u tari doontaan
qayb kasta ahaada wixii aad barateenna inaa ummaddiinna ugu shaqayn doontaan oo gaarsiin doontaan oo u faa'iidayn doontaan ayaan idinku ducaynaynaa waxaana rajaynayaa inaad ka soo bixi doontaan insha allahu waxaana idin rajaynayaa guul iyo horumar waxbarashaduna intan oo keliya maaha qof waliba wuxuu bartay ha ku talagalo inuu sii wado inuu kororsado inuu saahidsado ayaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan odhan lahaa tii waxasan taabtay ee tahriib tahay taa waxay la tahay dee inaynu ka waantowno ayaan rajaynayaa waxa dhibka taagan waynu ognahay waxa qiyaamo badan baa ummadda ku dhacday khasaare badan baynu gallay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaynu ka waantowno kulligeenba maalin kasta waxaad arkaysaa hooye u ooyeysa oo leedahay leebiyuu ku xidhan yahay suudaan buu ku xidhan yahay gabadh baa xidhan wiil baa xidhan wiilashaba ha u bateene waxaan rajaynayaa ilaahay inuu tahayna ka sakhiro oo aynaan insha allahu tacaala aynaan joojinno baan rajaynayaa aad baa umahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku xijinayaa hadda xagga dawladda wasaaradda qorshaynta Faysal Cabdikariin Xirsi falyatafadal mashkuura ahlu samaawaat wa ahlu ard runtii xirfadu aad bay nolosha qaali ugu tahay qofkii garanaya anigu waxaan bartay dawaarka xirfad ahaan baan u bartay laydhkana waan bartay runtii markaan aniga leeyahay waxaan idin tusayaa in ay tahay xirfadu markasta qofku inuu qalin iyo buug ku shaqeeyo xirfadda ka sii wanaagsan nolosha fursadda waa la abuuraa balse dhibaato way imanaysaa runtii waxaa laga yaabaa inaad idinku isweydiinaysaan xaggaad ka shaqaynaysaan maxaad waxaan ku qabanaysaan sidee baad wax uga soo saar aad wax soo saar ku helaysaan iyadoo shaqo la'aan baani ay dalka ka jirto misana waxaad helaysaan fursado aad u fara badan haddaad maskaxdiina si toos ah u soo adeegsataan waan rajaynayaa inaad heli doontaan insha Allah laakiin waxaan idin leeyahay team noqda group isugu xidhnaada si ay wax qabadkiina u muuqdo fursadahana aad u abuurataan shaqadana aad u abuurataan ha ka suginina in cid idin riixdo meel leedin geeyo leedin shaqaalaysiiyo awood baad yeelanaysaan markaad isku xidhnaataan boardkii aad samaysataan qaybtii beauty salonka hadday hablaayihiin qaybtii dawaarka qaybtii computerka dan idinkaa leedin baahan yahay wax soo saarkiina leedin baahan yahay taana way iga talo way idin rajaynayaa mustaqbal qurux badan insha Allah way idin rajaynayaa isbedel degdeg ah insha Allah laakiin way idinka yimaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo socotaa laamihii dawladda dhinacooda hadalkii speechku sida uu sheegay Faysal waa wax loo baahan yahay idinka la idin baahan yahay runtii xaqiiqatan marka run laga hadlayo ganacsiga guud ahaan dalkeena ee soo koraya ganacsiga gobolka ee isaguna gaar ahaan soo koraya waxay u baahan yihiin dad skills bartay oo xirfad leh waana idinka weeyay runtii hadday tahay shirkadaha ganacsiga iyo hadday tahay dawladda hay'adaha kale ee internationalka kulli idinka idin baahan yihiin dadka loo baahan yahay waa idinka weeye waxa weeyaan waxa tihiin force-kii iyo xooggii iyo quwaddii ay ku shaqayn lahayd cid kasta oo maanta entrepreneur ah oo wax abuuraysa awooddii ay ku shaqayn lahayd waa idinka weeye marka aad baa idinku baahan yahay dadku idin baahan yihiin dalkeena uu idin baahan yahay insha Allah inaad isku xidhnaataan oo aad network samaysataan isku duubnaataan waxbarashadana sii wadaana waana iyadana waa iga dardaaran weeye oo sidii qoliyada hore idin sheegeen gacmuhu wada jir wax ku qabtaan laakiin haddii qof walba intuu shahaado yar gurigiisa la qabto meel la tago oo aan la isku xidhnaanin oo wax la wada qabsan dee waxba sameyn mayso marka insha Allah taana waan idin kula dardaarmaynaa waan idin ku boorinaynaa waa aniga farxad gaar ah ilaada xafladan qiimaha badan wiilasha iyo gabdhaha ka qalin jabinaya halka kan waxa weeye hay'adda kaladlayd mahad gaar ah leedahay ilaah baa mahad leh waxa weeye xafladan oo qura kama qayb galin oo kaladlayd qabatay wax badan baanu ka qayb galnay waa hay'ad qaali ah ilaah baan ugu mahadnaqaynaa garashada ilaahay garansiiyay in dalkiisa dadka wax u qabato intiinan saaka halka fadhidaan waxa weeye waalidiintiina runtii waxa u keenteen khibrad gaar ah oo dee waa wada shaqayn hay'adda iyo waalidiintu waa wada shaqayn waalidiintiina qiimo gaar ay leedahay laakiin waxaan leeyahay abaalku yuu noqon
intaad daartii ka sii xaraashtaan inaydina badda ku dhacdaan oqoontaas waxbay hagtaa kaayagana u baahan kii idinsoo barbaariya u baahan hay-addaa u baahan abaalgud waxaanu leenahay ku tolotee maxaa taqaan dee haddii shahaada laydin siiyey dalkiiyo dadka wax ugu qabta idinka intaasaan idin idhi hay-addana waxaan idhi allah idinla qabtee saanu galay ma arkaysi intaasaad kala sii dhawaataa weli ma dhowo baciid ka sii badisiiya waa ognahayoo hay-ad intaa aad ka qabateen gobolkan ama degmadan ka qabatay ma jirto waxaan u malaynayaa xafiladan sidan oo kale ah hadda nooguma horreyn oo ka dhalayd qabatay 10 joor oo hore bay qabatay oo dad intan iyo in ka badan baa ay ka saartay aqoon kororsi aad iyo aad haddaan waayeelka magaalada nahay iyo kuwa kale meelaha joogaba aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waxaanu nidhahnaa waa khayr ilaahay idiin soo diray hay-addan ka dhalayd maxaa jira waxaanu isleenahay intaas waa taaliimi lahayd haddaanay aqoontaa u fidin oo waxbarin waaba iska dhaqaajin lahaayeen marka wax weyn bay ka qaadatay inaan la tahriibin hay-addan ka dhalay aad iyo aad bay u mahadsan tahay waa run sidii siciid u sheegay ka dhalayd manaa waa markii lixaad iyo kii shanaad mooye waxay tahay waxaan ka soo qayb galay xaflad noocana oo lagu qalin jabiyey waxa wanaagsan in qofkii wax yaqaanaa qofkii aan waxba aqoon sabab uu u dhaamaa inay jirto oo ka muuqato qofka horta wax bartay marka koobaad hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun qofkii horta wax garanaya waa inay ka muuqataa oo aad aqoontii u sheegtaa qof walba haddaad qof walba usii sheegto xafladanoo maanta 101 qof ka qalin jabinayaan weliba 170 ay habla yihiin dee hablahaasu haddii mid waliba ay sii wacdido 70 kale markay 140 laba 180 sheegaan wax badan baynu wax ka qaban karaynaa waa ogtiino arrintan tahriibka annagaaba odayaalo u baahnayne haddii waan waraystay oo haddii imika la yidhaahdo badda xeebta cadmeed baa lacag laga soo qaadanayaa oo ay iska sii taallaa doonta way isku baqiiqi lahayn amaan dhiban amaan noolaanne waa tegi lahaa kolley anigu waa tegi lahaa haddii xeebta lacag taallaa yamanta laakiin waxa war maxaa la yeelayaa waddan baa la tegayaayoo dabadeedna dadkii lahaa dee joogo dadkuna dee inaga aqoon badan anigu dadka inay nagu liidanaan u haystaa dadka talyaanigaa la tegayaa dadkii isagiibaa 70% aanay shaqaynba oo dibshir gidaarada yihiin jaamacadaha inta ka soo baxeen qofkii soomaaliga ahaa ee tegey muxuu qabanayaa eeda iyagu ilaalinaya dadka gaboobay iyaguu maydhayaa baa lagu leeyahy dadka gaboobay ee dhaqtarrada la geeyey iyaguu maydhayaa baa layidhi waa qofka noolaada ee faraha la gaadha waana aragteen qofkii kale jidka waxa ka haystay siduu ku dhimanayo waxaan ogahay qaar badan oo reer ceergaaba ah oo inta 7,000 loo diray dhintay hadduu iska joogo ilaah baa doorta qoray oo u qoray inuu sababtaa ku dhinto laakiin hadduu joogo lahaa 7,000 meherad wanaagsan inoogu furo uu ku furo waxbaa kordhi lahaa arrintaa tahriibka horta markaa arrin in qof caqli lihi kaba shaqeeyo ama ku fakero ma aha arrintaas waxa tiifiyada ka haysta waad yaabsa haddaad daawataan oo internetka daawataan qodobka kale runtii annagu waxbarasho ahaan ilaabi maynu hay-addan la yidhahdo ka dhalayd wax badan bay naga qabtaa sanadkii imika aynu soo dhaafnay 16 fasal ayay noo dhistay 10 iskuuloo kala duwan oo gobolka sanaag ka kooban imikana 12 iskuul baan sanadkan soo socda 2014 ay ka hawlgelaysaa oo ay dhisaysaa dhowr iyo 20 macallin waxay noo siisaa gunno ayay siisaa oo iskuullada ay wax ka qabatay ka kooban qorshe wanaagsan beritadanna qorshe kormeero aanu kormeerayaasha gobolka gelinayno 10 kormeere ayaan hawsheeda fulinaynaa iyo annagaba inaanu ka daba baxno markaa ka dhalayd waa tiirarka waxbarashadu ku shaqayso khaasatan gobolka sanaag waan ku hadlaya afkiisa koobay ka tahay ka dhalayd waxa wanaagsan hablaha qorshaha ka dhalayd waxa ku jira horumarinta hablaha inay wax nagala qabato xagga waxbarashada nagala qabato hablaha
waxaa la leeyahay oo sanadkan la isla gartay oo lala ballaaran lagaga jiraa in la yidhaahdo aniga waa la yeeray waxaan tegey burco waxaa laygu yidhi imise iskuul baad xukuntaa waxaan ku yidhi 204 iskuul imisaa dumar maamulayaala waxaan ku yidhi midna waa ila yaabeen qoladii dee barnaamijka watay aad baa layla yaabay imisaa kormeeraha dumarka waxaan idhi midna wuxuu waa rag waa layla yaabay adigu nin baa taa qofka kugu xigaa waayo waa nin waxaa lagu yidhi 2014 intaas waxba kama jiraan aniga siigo midbaa dumar lagu bedelaya hortaan idiin sheegay kormeerayaasha waxaana lala ballamay bisha shanaad ee sanadkan soo socda haddii alla na gaarsiiyo midkaana in gobol kale loo bedelo midkaana gabadh lagu bedelo waxaa laygu yidhi xafiiska imisaa dumar ka shaqeeyo waxaan ku yidhi 2 imisa weeye shaqaalaha xafiiskuna 13 kordhi baa laygu yidhi 4 ku kordhi baa laygu yidhi marka barnaamijka horumarinta hablaha ee nala wato keer iyo wasaaraddu ay waddo waxa weeye maanta waxaa la doonayaa wax alla wixii gabadh waxaa laygu yidhi doonaysaa inay maamulo noqoto iskuul soo qor baa laygu yidhi gabadha gabadha doonaysa inay maamulo iskuul noqoto soo qor baa laygu yidhi ta doonaysa inay kormeero noqotona soo qor baa laygu yidhi markaa hablaha oo imika halkan ku jiro 70% qaybahan kala duwan bartay imika bartay mustaqbalkooda 2014 hablaha gobolku dee heer sare u kacaya qorshahaasoo dhan baanu haynaa qorshaha oo dhan baa loo hayaa marka waxaa la doonayaa inay adadag soo golo meesha annagu waa sababaynay ilaa dembi baa nala saariyay waan iska reebnay waxaan ku nidhi inaad wax kasta baratee wiilku markuu sandarfoor yahay ka badan isma hortaagto eelkaanaga u dhigi karin markii la sekondariga maxay ku dhigi waayeen waayo markuu inankii weynaado oo indhaha ku cadcadeeyo oo say gabartay macallimada uu eeri gaadho ama sekondari gaadho waanay hortaagnaan karin baan ku nidhi daliilna waxaan yeelkeedii annagaa soo baraynay indhaadayga soo tirban ku yidhi soo tira baa la yidhi wixii gabadh doonaysa maamule markaa wixii gabadh maamulo doonaysaa idinka iyo kuwa kaleba diyaar baanu noo wadinaynaa wax la soo baraya indhaadayga ay isku hortaagiso waa la soo baraya jalla ilaah assalaamu calaykum waayaha adduunyada waxa lagu abbaaraa aragtada kuna axdaa waabyamika siyoomaal ilayskii ka baxayo iyo aqooni waayaha adduunyada waxa lagu abbaaraa aragtada kuna axdaa waabyamika siyoomaal ilayskii ka baxayo iyo aqooni I